برنامج دجال كاس دل كتل لوجا حرينا يا دولة دجسي فيس كيسي كوبادا جب سومروها فيس كيسي لبادا لجلا فيس كلبات كوفر قلبيدا وقصوه الرئيسو جيس madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay mar kale inuu ka bilaabay wajigii labaad dagaalka al-shabaab koonfur galbeed dadka hadal ku hadlaayeen oo bay ugu geekiyay hal milyan iyo badan ku noolin iyo dhammaan koonfur galbeed oo magaalo kasta saasan amar inta qanti tabartii hayd oo meel kasta arday iyo dhagaa qoraan lahayn ee khilaaf siyaasadeed oo abuurmi oo khilaaf siyaasadeed uga arday humaantu sheeno koro ni galan kool nisbadel koro meel aan loo qax aan lahayn qax kale la galo raali kama nihin qof kasta oo mas'uul wixii uu rabo kii xil haayo kan xil haynin waxa mas'uuliyad ka saaran tahay amniga maxaa yeelay waxa aan joogno iyo meesha aan xabsiga oo ku korna gacanta maqas caadi oo dadka loo khala macnaha ninka way kala jiideen gacanta shanta farood iyo ninka balbalka la qabta way kala jiideen hawa inta iyo horta kooda waxay xireen ilaa intaas ay xireen marka hore intaas iyo inta rataalay qartabsiiyeen waa tahay qodobadaasi oo dhameystiran ayaa daawo doontaan anigoo ah Mustafa Maxamed Cali ayaa idin faahfaahinaya u diyaar garowga dhameystiran madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shirka dib u heshiisiinta siyaasiyiinta koonfur galbeed Baydhabo maanta ka furmayna ka hadlaya waxa uu sheegay in wajiga labaad ee xoreynta dalka uu ka bilaaban doono koonfur galbeed asigoona intaas ku daray in Soomaaliya iminka wajigii koobaad uu soo gabagaboobay isla markaasina koonfur galbeed geeska gees iminka uu ka bilaaban doono marka ugu horeyso howlgalka ka dhanka kooxaha qawaariijta al-shabaab wuxuuna sidoo kale madaxweynaha xarabka ku dhuftay in iminka Soomaaliya hal cadow ay leedahay shabaab uu yahay isla markaasina ay dilaan iyaguna inay dilaan sidaas darteed si loogu xoroobo ayaa la bilaabayaa wajigii labaad ee howlgalka walaalayaal cadow aan leenahay hal waay shabaab waay waa dilowhayna anaga barnaamij dagaalkaas dalka dhan looga xoreynayo ayaa dawladdu dejisay fayskiisii koobaada gaba soomaruha fayskiisii labaada la galaa fayska labaad koonfur galbeeda ugu soo horeyso gees xuduudda xadka Itoobiya ka soo bilaaw maxaan ku raraa badda Indian Ocean ku geey koonfur galbeed waaye meel kale looga gudbi kara male ayada muxuu ahay aan galayso markeeda annagana waa garab taagan madaxweynaha wadalkiisa sii wato ayaa waxa uu ka hadlay arrinta la xiriirta maamul goboleedyada ee ciidamada ay leeyihiin in aysan u adeegsanin siyaasadda ku militaankeeda dowladda dhexe raalli ka tahay wuxuuna sheegay in aysan raalli u ka ahayn intii dowlad goboleedku boolis ku filan oo ardayda wax ay ka helayso laakiin macnaheedu taas wali ma aha inay maxaan ku raada dadka inay dilaan inay haraas gareeyaan inay qashqashaadaan inay maxaan ku raada waxayaan marna ma aha annagu ma ogol raalli kama ihi gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe oo maanta Baydhabo shirka siyaasiyiinta ee koonfur galbeed heshiisiintooda ahaa ka hadlay ayaa wuxuu sheegay in iminka heer koonfur galbeed ay u banaaneen in ay qabsadaan dagaal siyaasadeed oo ka dhaco maadaama magaalada Baydhabo iminka 1 milyan oo dad kooxaha qawaariijta al-shabaab ka soo cararay dhibaatada ay ku hayaan ay dul saaran yihiin dhibaatadaas inay jirto aysan qurux badneen in la iska qabsado dhexdoodana isdagaalaan sidaas darteedna la naqdo dad wada heshiis wada ogol leeyahay sidii wax loogu qaban lahaa bulshadana lagu dhaqaaqo oo Baydhabo geekiyay 1 milyan iyo badan ku noolin iyo dhammaan koonfur galbeed oo magaalo kasta saasan amar inta qanti tabartii hayd oo meel kasta arday iyo dhagaa qoraan lahayn ee khilaaf siyaasadeed oo abuurmi oo khilaaf siyaasadeed uga arday humaantu sheeno koro ni galan kool nisbadel koro Cabdicasiis Laftagareen madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday koonfur galbeed oo goobta ka hadlay ayaa asigana dhankiisa wuxuu sheegay cid waliba siyaasiyiinta diyaarada shacabka dhamaantooda loo baahan yahay in la wada imaado isla markaasina xalka amniga iyo dadka horumarkiisa laga shaqeeyo aan lahayn qax kale la galo raali kama nihin qof kasta oo mas'uul wixii uu rabo kii xil haayo kan xil haynin waxa mas'uuliyad ka saaran tahay amniga
maxaa yeelay waxa aan joogno. wiilkan qoriga ka wato gacanta midig ayuu ka jaran yahay 6 bilood ka hor kooxihii khawaarijta al-shabaab asigoo 18 jir ah ayay waxay kaga jareen deegaanka Guulale inta aan laga xoreynin oo asigana gacantiisa wax kaga xoreynin kooxdani. arxalnaawayaasha ee diinta beenta ka sheegto ayaa waxay dhowr jeer deegaanada maamulaan ka sameeyaan dhibaato ee tacadiyad diinta aan raad ku lahayn, balse 6 bilood ka hor waxay ahayd magaaladii uu ku dhashay ku soo barbaaray in si xaq darra gacantiisa midig uu ku waayo, balse nasiib wuxuu u helay in uu gacantii ku go'need uu ku qaato qoriga AK-47 isla markaasina baro maarta xabadda gumaceeda. sidaas darteedna ay sahashay in asiga iyo sidoo kale dad fara badan oo deegaanka oo ka dhiidhiyay gulufkooda gacaanka ee sameeyeen kicitaankaasi dagaalkii ka dhashay oo garab ay ka helayeen ciidamada mas'uuliyiinta geesiyaasha Soomaaliyeed ee xoogga dalka laga saaray deegaankii lagu dhibaateeyay Mukhtaar Maxamed oo ah wiil Soomaaliyeed. isla markaasina waxa uu sheegay in markii gacanta laga jarayay oo isla markaasina deegaanka maanta uu ku naaloonayo uu yahay halkii uu ku soo barbaaray wax ku weynaaday lagu dhibaateeyay maanta xorriyad uu asiga keenay ee ku dhamaashadayo. sheekada xanuunka leh waxay tahay markii gacanta laga jarayay in wiil deegaanka ka mid ah dadka uu yaqaano oo lacag uu watay uu shaxaaday oo isla markaasina 600 shilinka Soomaaliga wiilkii watay siiyay, balse markii uu iska jiiftay waa berigii asigoo guri ku jira laga soo baxsaday kooxdana ee gacanta kaga jartay maqas, sidaasina gacantiisa uu midig ku waayay. balse xanuun uu dareemay ayaa aabihii Maxamed sheegay in uu qaaday Muqdisho, balse kooxihii diinlaawiyaasha ee khawaarijta al-shabaab ay ka biyadideen. bal hanoga warbixiyo xagee ka keentay inta yiri xoolaan gatano waxaa yiri wax ma walaalo waa shiidsanay wax siiyaan dhaaso ana hal $1 iyo wax saas ka fiirinaya oo 300 uu soo kortoorno 300 haduu siiyay buu iska qaato iska tagay xaafadan iska jiftay oo biladka u dhow oo adiga 3 daqiiqo u jirin oo aqal caadi iska jiftay. ana waxa dhihi maaga joojiya ninkan wiilkan wax lacagta uu la siiyay nin kale santis lagu sii maqayha lacagtaas qaaday wiilkan ka leex dhaal dhihi maaga wuxuu dhahan ilaa intii oo laga qabto wiilkii laga soo qabto asaana kaliya xabsiga uu ku korna gacanta maqas caadi oo dadka loo khala macnaha ninka way kala jiideen gacanta 5 farood iyo ninka balbalka la qabta way kala jiideen hawa inta horta kooda waxay xireen ilaa intaasay xireen marka hore. balse caawa asiga oo qorigiisa wato wuxuu ku hoyanayaa deegaankii lagu dhibaateeyay, isla markaasina asiga iyo dadkii kale ee shacabka ahaa ee reer Guulane oo gobolka Shabeellaha Dhexe ka biyadiiday dagaalkii ay galeen ee qoriga u qaateen baaruudda gumceedana ee Breenas iyo walaalahood kale ee geesiyaasha xoogga dalka Soomaaliyeed waxay taagan yihiin farxad inay ku jiifanayaan. deegaano dhowr ah ayay sidoo kale sida ay u galeen Mukhtaar ee u baabi'iyeen, balse iminka xaaladda waa sidaas u jeedin oo la iska ciyaar dhaqameedinayo, balse farxad dadkaas ka muuqato mise ka muuqan jirin 6 bilood ka hor.